السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتين ما أنت وثلاثة وأنا لحية طبعا كبيشة ديسمبر إلا بيتمنات سنة كلابة كون إيه الشنية اللي باتنك هالجلادة إذا ماذا آيس تضبط كيس الدحادة كوضان مقالوين كما تاناها سان باولي مينيابوليس waxay saameyn ku yeelanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba waxaa jirtay dhalinyarada Soomaalida ah ee wada Uberka ama Lyftiga oo ka shaqeeya airportka St Paul iyo Minneapolis ka dhaxeeya ayaa waxaa jirtay in meesha ay ku sugaan marka rararku ay u soo dhacayaan oo parking-ka ay ciidamada ICE ay tageen isla markaana ay bilaabeen dad inay ka soo qabqabtaan waxaana sidoo kale dhalinyarada muslimiinta ah ee wada Uberka iyo Lyftigu sidoo kale ay ka cabanayaan in aysan lahayn meel ay ku weysa qaataan amaba ay ku tukadaan waliba xilliyada qabowga oo hadda lagu jiro haba ugu sii darnaatee marka shalay ayaa waxaa jirtay guddiga maamula airportka oo magaciisa MAC loo soo gaabiyo oo la yiraahdo Metropolitan Airport Commission waxay yeesheen kulankoodii ugu dambeeyay ee sanadlaha ahaa waxaana lagu casuumay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana kamid ahaa dadkii ka hadlay dhalinyaro Soomaali ah oo iyagu cabashadooda guddiga airportka labada magaalo ee mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis ka dhaxeeyaba maamulo waxaana sidoo kale jirtay in laga hadlay dhoofinta ama masaafurinta ay ICE ka wadaan airportkaasi oo diyaaradahooda inta yimaadaan dadka laga qaadayo isla markaana laga masaafurinayo haddaba dadkii shalay ka hadlay waxaa kamid ahaa in aadan macalin oo si kulul ula hadlay guddiga la airportkaasi maamula waxaana in waxyaabaha uu ka codsanayay kamid ahaa in loo sameeyo meel ay ku tukadaan amaba ay ku weysa qaataan iyo musqulo wanaagsan in loo sameeyo goobta parking-ka ee darawalada gawaarida Uberka iyo Lyftiga marka ay sugayaan rar u soo dhacayo ay ku sii sugayaan oo laga yaabo qaarkood maadaama dadku ay badan yihiin inay saacado halkaas fadhiyaan aadan soo dhawow shalay guddiga ayaad la kulanteen airportka maamula maxaa kamid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad kala hadasheen oo adigu shakhsiyan aad kala hadasheen umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaaridaad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faafahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaana kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda cilmi waa maasan tahay waxaan kala hadalnay guddiga 3 qodob qodobka waxaa kamid ah darawalada yar kamid ah waxaa la qabtay jimcihii subaxdii hore waxa lagu dhax qabtay airportka qolada ICE awal hore ma soo gali jirin airportka gudaha u soo galeen waxaana soo wacay darawalada yar kamid ah na soo wacay anagoo magaalada ku jirno meeshii marka imaanina waxay ahaayeen 3 gaari oo ICE ah 3 gaariga waxa ku jiray 3 qof 2 gaari markayna arkeen inaan soo galnay aniga iyo yar nala shaqeeyo madaxa unionka xagga darawalada ka caawiyo marka soo galnay 2 kamid ah way baxeen kadib waxa soo haray mid kamid ah baabuurtii ICE ee wateen waxa dhacday meeshaas arin aad u falxuna ka dhacday wiilasha kamid ah oo darawalada kamid ah ayaa waxay sugayeen inuu ka baxo maadaama saala socoto airportka parking-ka lagu sugo feerarka waxay rabeen ku baxo inay ka daba tagaan ee dhaxda ku qabtaan ay kala tagaan gaariga sababtoo ah lambarkiisa midda tragrayna u malaya marka wuxuu kamid ahaa dadka dhalinyarada sharcilaanta wadan ku jooga mooyakaasi kamid ahaa taasan jecelnaha waa gartay marka waxa dhacday marka yarkii asaga ahaa maadaama kol uu soo dhici waay anagina meesha aan imaanay oo qoladii ICE ku mudaaradeysana meesha ay imaadeen maadaama uu wax yarkii darawalada ka caawinayay xagga unionka uu wacay oo dhaay meeshii airportka markii soo galeen aan isku imaano markii arkay inaan baabuurta ka soo degnay
waxay ku horgooyeen gaarigiisa waxay ku gooyeen gaariga ay wateen waa garta kadib waxaa dhacday markii anaga banaanka soo baxnay farbiya aan soo qaadanay waxay noola soo baxeen sunta ka ilmeysiisa dadka waa garta kadib meesha adig buuqa ka bilaabmay adiga halka wiil bay noqotay inay farayana kala baxaan oo way wateen marka dadkii kale meesha ku jiray waa ka seedgaleen waa gartay waxaad marka meesha aad ka sheegtay inaad booliska wacdeen boolisku maxay idin yiraahdeen markii aad la xiriirteen marka booliska marka hore qorshaha wuxuu ahaa inaan soo geli karin baarkinka qof aan wadanin sticker baa jiro booliska ay bixiyaan elboorka ay bixiyaan jiro waa gartay muraayadiis hore ay ku dhegan tahay oo lacag laydinka qaado oo lacag aad ku bixisaan aan ku bixinaha lacag badan baan waan ku sheegi doonaa dib aan kaaga sheegi doonaa waa gartay dhacday marka booliskii markuu imaaday gadaal naga istaagay annagoo qaylinayno sunta ay noola soo baxeen aysti ninkii ay qaateen booliska markuu imaadana wuxuu noogu abaalguday in gaariga hal saac kadib uu qaadayo haddii aadan baakinka laga qaadan waa towgareynayna waa jiidaynaa idinku yidhahdeen waa towgareynayna waa jiidaynaa marka arrintaasaa shalay markaa keentay in laga hadlo oo aad looga gelgisho midda labaad waxaa ka dhawaajisay salaada dadka iga dambeeya waxaa markhaati oga dhigaya annaga bartaasaan ku tukannaa salaadaan ku tukanna waa meeshaas qabowgaas uu jiro -5na uu yahay daraad asagoo minus uu yahay waxaan ku tukanayna bannaanka kore eelboorka waa ujeediin miidiyaa si fiican u fiiriya shacabkan si fiican u fiiriya waa kuwaasa wadada dhexdeedana waa saliyada aan ku tukanayna barfaa wada qaaday waa kuwaasa si fiican u fiiriya miidiyana waa kuwaasa oo tuseenaa miidiya shacabkuna tuseenaa waa markhaati gelinaynaa hadda salaada waxay soo jiitamaysay ilaa ay hal sana soo jiitamaysay aniga qoladan meeg elboorka isku haysanay saa la socoto cimilada way isbedelaan waa gartay state xilliga kuleelahana aad bay u daran tahay cimilada xilliga warkeeda iska daa hadda maantaas waxaa jiray -5 iyadoo ay tahay waxaa lagu tukanayay Post Road terminal wadada aadaysa lagu tukanayay inaad miidiyaha ka aragtay in kala ma garanayo waa gartay sawirada waad haysaa waad soo diri doontaa kolley waan ku soo diri doonaa waa haynaa marka waxaa dhacday marka arrintii marka waxaa naga caawiyey qoladan la dhaho SIU local 26 marka